erayga afkaaga ka soo baxaya aad u ilaali. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Abshir Cumar, halkanina waa Badar Media. walaalayaal maanta waxaynu qaadan doonaa qiso aad u kooban. waqtiga, daqiiqadaha, dhugashada iyo fiirsigeedu ka qaadanayaana uu aad u kooban yahay. hase yeeshee micnaha ay gudbinayso iyo xogta ay bandhigayso laynooga baahan yahay waqti badan inaynu gelino, maskaxdana aynu u sii dayno. topiga iyo mowduuca ay ku wareegi doontaana uu yahay eraygeenu horeba u soo sheegnay ee ahaa erayga afkaaga ka soo baxaya aad ugu fiirso. waxayna ku bilaabmaysaa waabaa waxaa saaxiib ahaa laba dhalinyaro, waa laba wiil. mid ka mid ah aabihii baa dhintay, waana marxaladda loo yaqaano agoonnimada. waqtiga inanta ama inanka uu aabihii dhinto agoon baa loo yaqaanaa. wiilku wuxuu ahaa agoon, wiilka kalena wuxuu ahaa wiil aabihii u nool yahay, hooyadiina u nooshahay, nolol aad u fiicanna iskaga nool. dhalinyaradu amaba carruurtu markay asxaabta yihiin way israacaan, way wada ciyaaraan, way wada dheelaan. maalin maalmaha ka mid ah baa labadii carruur ahaa waxay isku raaceen gurigii wiilka aabihii uu nool yahay ayay tegeen. carruur waa ciyaartaaye ciyaar baa loo kala baxay. wiilkii yaraa ee gurigooda la joogay baa wiilkii agoonka ahaa waxa uu ku yidhi, walaalo, aabbaa guriga hurdee, kubadda ka daa, yuu toosin walaalay makuu seexdaye. inankii yaraa ee agoonka ahaa hadalkii qub buu yidhi. inanka yaree kalena hadalka si fudud buu isaga yidhi. wuxuu ku yidhi, walaal, aniga kaalay raac. waa la israacay, waxaa la aaday meeshii gurigii wiilka agoonka aabbihii uu ku aasnaa ayaa la tegey. dabeetana wuxuu yidhi, walaalo, wiilkii agoonka habaa ku odhanaya wiilkii kale ee aabihii noolaa, walaalow, kaalayoo bartan igula ciyaar, waxaan doonayaa in aabbahay uu soo toose. erayga afkaaga ka soo baxaya aad u ilaali. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.